waxaan u wanaagsan asxaabtayna qaaliga waa markale barnaamijkeena excelka caawa waxaan idin tusayaa sida loo xisaabiyo present value-ga iminka tusaale present value future value-ga sida loo xisaabiyo ayaan ku tusinayaa caawa ayaan tusin haddii la idhaahdo tusaale haddaad haysatid $1 aad baan dhigatid oo bilow ay kuugu beerayso 5% oo ratekaas ah oo interest ah ama base riba ah dulsaara haddii ay kuugu beerayso 10 sano soo socoto imise ayaan helayaa sidii loo xisaabin lahaa ayaan caawa falowgayga halkan idinku tusaa haddii la idhaahdo marka waxaan inaan helo u baahannahay waa kan weeyaan future value-gaas ayaan inaan u baahannahay inaan helo marka sidii loo shaqayn lahaa halkan idinku tusaa haddii la idhaahdo equal to ayaad leedihiin marka koobaad future fv yaan leenahay value double click readka ama dulsaarka yaanu ku dhufanaynaa inta sano ee maxaa la dhahdaa inaad ku ogaatid doonaysid ayaanu ku dhufanaynaa 10 sano halkaa ka dhiganay minus maxaa la koomaan leenahay 0 baan leenahay kooma yaan leenahay minus yaan leenahay lacagta aad haysatid iminka ahaan qiimaha aad haysatid ayaanu sidaas ugu dhufanaynaa enter yaan leenahay markaas future value-gaaga lacagtaas $1,000 aad iminka haysatid markay kugu korodho 5% 10 sano soo socoto waxay kuu noqonaysaa $1,629 ayay kuu noqonaysaa halkaas iminka waxaan halkaas ku baranay in qaabka loo shaqeynayay future value present value sida loo shaqeeyo ayaan halkan idinku tusi doonaa haddii la yidhaahdo present value qaabka lacagta iminka ahaan haddaad intaas mustaqbalka aad heli karaysid $1 marka maxaa la ratekaagu yahay 5% 10 sano ee soo socoto intaa haddaad ku heli karaysid lacagtaad iminka haysatid imisay noqonaysaa saas ayaan iminka kaga shaqeynaa qaabkii aad u heli lahayd lacagtaad iminka haysatid present value-ga sidii loo heli lahaa yaan halkan idinku tusaya casharkan waa cashar accountiga lagu dhigto inaad baratay maan u malaynaya dhammaantiina intiina maxaa la yidhahdaa disciplinekan soo dhigatay markaas qaabka loo shaqeeyo present value-gaas ayaan caawa halkan idinku tusay haddii la idhaahdo markaas qaabkii loo shaqeyn lahaa waxaan leenahay equal to ayaan leenahay bv oo u taagan present value u taagan ayaan click leenahay rateka ayaan click leenahay equal to rateka aan click leenahay equal to bv double click rateka aan click leenahay koomaan leenahay inta sano maxaa la dhahay ku ogaan doonayno ayaanu click leenahay kadib waxaan leenahay eber kooma ayaan leenahay minus ayaan leenahay lacagta futureka aad helaysid maadaama tan haysatid oo doonaysid ta aad imika aad haysatid aad doonayso ta futureka aad helaysid ay tahay imika waxaa lagu yidhi 10 sano soo $1,000 baad helaysaa waxaana kuu saaran 5% baa lagu yidhi ma garanaysid laakiin tusaale lacagta aad imika haysatay aad ahaan banka kuu tahay lama ogaan karaysa qaabkii aad u ogaan lahayd weeyaan waxaan idin tusay marka tan futureka aad heli lahayd yaan click leenahay markaan click leenahay enter yaan leenahay lacagta imika ahaan banka kuu tahay waxay ka dhigan tahay $614 ayay ka dhigan tahay intan waa intaad mustaqbalka aad helaysid 10 sano ee soo socoto 5% waa rateka ama dulsaarka kuu saaran 10 sannadood ee soo socoto markaan intaa heli doono imisaan imika haystaa ayaad isweydiinaysayd markaas waa anaga formulaha ku shaqeynay waa $614 ayay ka dhigan tahay markaas barnaamijka qaybihiisa kale si aad ula socotaan filow soo dhaha aad iyo aad baad mahadsantihiin meel walba aad joogtaan dhammaantiin